السلام عليكم. galabta waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo cudurka la yidhaahdo qabiilka oo aan in badanna ka hadlay. Laakiin waxaad moodaa waa jirra inta badan dadka ku dhex jirta oo sugaysa xilli ama waqti in la kaagiciyo si dadka ugu soo laba kaclayso. Waxaad u baahan tihiin Soomaaliya dhowr xaqiiqo inaad ogaataan. Koow horta qofka qabiilka qaba ama qofka cudurka qabiilka ama cuqdada qabiilka aan dhehe ay ku weyn tahay waa qof waalan. qofka waalanna waxba lagama qoro, waxba lama weydiiyo, tala lagama qayb geliyo, lalamana doodo. maxaa yeelay haddii aad la doodo qof waalan, dii aadna wad waalan tahay ama waa lagu soo socdaa laftigaaga. dadka qabiilku ku weyn yahay inta badan ma xishoodaan maadaama ayba waalan yihiinba ma jiraan waxay dhowranayaan ama wax ay ka waabanayaan. waxaa dhacaysa marka inay caayaan qabiilka adiga lagugu sheekeeyo inaad ka tirsan tahay. marka waxaa dhici karta inaad laftigaagu ay waalidi kugu soo laba kaclayso haddiiba awal ay kugu jirtay ama aad dadkaas waxay sheegayaan run moodo oo aad arrintii laftigaagu la jirato. marka waxaad u baahan tihiin inaad ogaatiin qofka cudurka qabiilka qaba inuu yahay qof jiran. qofka jirana waa macduur. waxaa jira xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi dadka qabiilku macnaha weyn u sameeyo ama dadka qabiilka isku xafaaleeya ama wax ku kala goosta qabiilka inay yihiin dad ilaahay agtiisa uga liita bahalka loo yaqaano xaarwalwaalka ama dadka qaarna ay dhahaan doorshaan. sababta ay xaarwalwaalka uga liitaan waxay tahay xaarwalwaalku xaarkiisa ayuu cunaa laakiin cidna sanka kama geliyo. laakiin kan qabiilka xaarka iyo qurunka uu cunayo ayuu wuxuu rabaa inuu bulshadiina ka gado dadkana gelisiiyo. marka sidaas macnaha habkaas ay tahay habka uga daran yahay macnaha xaarwalwaalka. qurunkiina asaguu ku dhex jiraa dadkiina wuxuu rabaa inuu dhex geliyo. waxaad la socotaan shalay waxaa ka dhacay magaalada muqdisho waxaa loo doortay guddoomiyayaal gobolka banaadir. dad baa waxay leeyihiin oo meesha uma dhalan mid waxaa ku jira puntland ka yimid mid waxaa oo muxuu ugu dhalan waaye yaa ka xiga macnaha ninkan maaha nin soomaaliya. dhibka jira waxa waaye soomaalida odayaal waa hore dhintay ayaa waxa ugu sheekeeyey inay isku yihiin cadow, inaanay waxba ka dhexayn, inay qabiilo kale yihiin, inay wax kala ceshtaan. marka mushkiladii ayada ahayd ama cudurkii waa hore ay odayaasha faafiyeen ayaa dadki isaga socdaan ayagoon wax su-aal iska weydiinayn. wariyaa magaalada muqdisho 22 sano lasoo dhaafay kuwa laleeyahay way u dhasheen ayaa isbaarooyinku u yaaleen. ayaga ayaa dadka ku dilayay, ayaga ayaa kugu fiirsanaya amni darrada iyo bulaacadaha iyo qurunka iyo dhibaatada iyo amni darrada. maxay kuu qabteen? kanse muxuu kaa bi'iyey macnaha marka lagu leeyahay kanu meesha uma dhalan ee aad aaminayso. waxaan anigu maanta ku qanacsanahay haddii aan taga puntland ama galmudug ama jubbaland ama meel kastoo kamid a soomaaliya haddii anigu tala galo inaan ka qayb galo siyaasadda ama aan jaga ka qabto wallahi san jirin cid ii diidaysa ama hataa ii diidi karta. laakiin dadkii cuqdada inta la kala geliyey oo maskaxda ka dhinteen ayay wax qof mid kasta oo xun wuxuu sheegay aaminayaan. marka soomaalida waxaan dhihi lahaa dadka waalan yaysan idin waalin. kuwa ayagu xaarka iyo dhiiqada ku dhex jira hadday waxaasoo kale kula yimaadaan waxaad tidhaahdaa adiga ayaa hallaysan ee ha hallayn, alle ha ku caafiyo adiga. laakiin ma aha inaad la jirataan, mana aha inaad buunbuunisaan. ninka soomaaliga waa soomaali. anigu hadda waxaan muddo 6 sana deganaha norway. xuquuqda ninka dalka u dhashay dhan uu leeyahay ayaana leeyahay. bal ka warran marka nin soomaaliya caqligu ha shaqeeya marka. waana salaamantihiin.